Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Maya Beauty and waa Sumaya ama Maya Beauty oo naga soo noqotay maanta waxaan sameeyay makeup lookan aan aad iyo aad uga helay masha Allah. Marka I hope inaynu kuna ka heshiin amba baratiin soo loo sameeyo makeup lookan pinkiga color waxaan isticmaalnay maanta pinkiga and marka ila daawada insha Allah barta soo loo sameeyo makeup lookan and igu ilobina insha Allah subscribe ka like iyo comments ka daawasho wacan iyo waxa comment igu soo qoro hadaa ka heshaan makeup lookan iyo iga follow gareeya social media ga xagga hoosta igu soo qori doona insha Allah daawasho wacan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan ku wareysinayna marka primerkan aan isticmaalo aad baan u jecel yahay wabiga dhamaan rabaaba waan soo ibsado horta aniga makeupkayga oo dan qurux buu noqdaa markaan marsado primerkan waxaan doonayaa inaan aad u sameeyo color bunigii iyo kalaradii yaraayeed waan ka yar caajisay marka waxaan isticmaalaya waa Carnival paletka ayaan isticmaali doonaa kalaradaas maanta isticmaalana imika ahaan primerkii baan wejiga marinay weji clean ah marka wejiga waa inuu clean ahaado marka primerka marinasid amba marka makeup marsanaysid baa wejigaaga waa inuu clean ahaado foundationka aan isticmaalna maanta waxa weeye NARS waan isticmaalanaa waa kaas wejigii oo dhan ayaan foundationka marinay marka waxaan isticmaalana waxa weeyaan Morphe brushes aad baan uga helaa markastaan waan ka hadlaa Morphe brushes laakiin waa kaas makeup waxaan doonayaa inaan si fiican wejiga u kala marino blending waa important inaan blend garano blend si fiican waana blend garaysa makeupka waa number 1 horta waa key very important qofka inuu blend gareeyo makeupka waa kaas foundationkii oo dhan si fiican baan u wala marinay I know I look a bit crazy because eyebrows kiman sameyn and inshallah marka waxaan doonayaa inaan isticmaalo Boldness Way concealerkayga and concealerkan baan marinayaa indhaha hoostiisa markaas ishan waan sameeyay sidaas ayaan u marinayaa isha hoostiisa ma doonayo inaan in badan markas weeyara daadacdaa laakiin ma jecli inaan ilaa hoosta soo gaarsiiyo waxaan jecli ilaa dusha bas laakiin I don't know markasta markaan isticmaalo concealerkan ilaa hoosta gaarsiiya markaan isticmaalo concealerka kale aan haysto baan in yaruun xagga mariya ma garanay inay iga tahay la jecelo oo aan ilaalinayo concealerka kale laakiin to be honest I think labada concealer ba inay yar qaali yihiin laakiin quality waa very important quality aad u fiican weeyaan makeupkaagana waxaan ku yiri qurux ka digayaa marka hadii uu tala marsan doonaa kaas marka Boldness Way baan indhaha hoostiisa meel kasta arkisiin ba marinay madax I think foreheadka waan doonayna mariyo laakiin inta ku hada brushka ayaan yar marin doonaa insha Allah marka ila daawada saan u blend gareeyo waxaan isticmaalayna waxa weeyaan Morphe brushes waan isticmaalaa marka insha Allah waxaan doonaa horta inaan yiraahdo isku wala warama ma fiicantihiin xaaladiina ka wala warama waxaan doonayaa as well dad badan baan ku bartay Snapchatka iyo Instagram ba dadka iga daawada YouTube-ka waan akhriyaa message-da waan isoo jawaabaa waan la sheekaystaana adduunyada meel kasta kala joogtay masha Allah ilaa iyo Soomaaliya Djibouti meel kasta Switzerland adduunyada waxaan ku jeclaa horta YouTube-ka because adduunyada meel kasta qof kasta uu ka daawanaya masha Allah like aniga oo xagan fadhiya oo qolkayga ku duubanaya ayaan qof magaalo kala jooga wax baraya amba daawanaya YouTube-kaaga marka anigu wallahi I love YouTube aad baan u jeclay YouTube-ka maadaama opportunity haysanayaan adduunyada oo caalamka oo dhan laga daawanayo wallahi waxa weeyaan arin aad u cajiiba and even habla badan oo Nairobi jooga insha Allah Nairobi waan iman doonaa inaan wala arko wallahi ayaan wala jecel yahay
inaan wala arka insha allah. Supportka as well horta Soomaalida waxaan ku jecel yahay dadkooga way support gareeyaan, dadkooga waxay jecel yihiin inay soo saaraan. Anigu horta number 1 baan yahay haddaan arko gabadh amba sameynayso waxayga oo social media makeup ahaato waxay noqoto ahaataba waa waa inaan garab qofka siisid. I feel like was so important qofku markuu dadaalayo inaan la caawiyo. Especially waxa weeyaan social media waxa weeyaan shaqo culus aad u culus aad walahi culays yahay editingi wixii oo dhan waxaasna dee way jirtaa. laakiin qofku markuu youtuber yahay waxaas uu ka helayaa YouTube markuu xagan soo fariisan aniga oo kale imika 4-5 saacadood xagan soo fariisan karaa ni sheekayn karaa waan ka helaa waxaan jecel inaan sameeyo. qofku waa very important inuu sameeyo wuxuu jecel yahay marka waxa jeceshiin dee waxaan ku yiri aad baa uga helaysaa maalin kasta soo kacaysaa imika aniga oo kale waan usoo kacaya YouTube waxaan leeyahay okay maanta waan shaqaysto waan asxaabtay maanta makeup video u sameeyo because waan jecel yahay as well like qofku subscriber-ku waxay ga codsadeen waa inaan sameeyo I know su'aalo badan hayo comment ku lagu soo qoray inaan sameeyo sunniyaha loo sameeyo etc laakiin insha Allah waan soo wadaa sida sunniyaha loo sameeyo iyo sida lasheska loo gashto su'aalihiinana waan akhristaa. I think xagga Facebook ayaa igu adag laakiin Instagram kana sometimes because waa so difficult wuxuu ku jiraa meel yar oo qarsoon buu markaas ku jiraa dadka aan follow gareeyo baan arkaa message-ada sometimes iyo like laakiin insha Allah waan soo jawaabi doonaa haddaan weli ku soo jawaabin. Snapchat-kana dad badan ay la xiriirsan Snapchat-ka waan la sheekaysaa Snapchat-ka waa kaas blending badan baan sameynay waan ugu soo noqon doonaa insha Allah waxaan doonaynaa si fiican u blend gareeyo. Okay waan igu soo noqday igala lahaada concealer-ki markaan mariyay contour-kina waan iska bilaabay anigoo kamarada shidin marka wax badan baan sameyn waxaan isticmaalay palette-kan sleek la yiraahdo sleek makeup in arkaysiin ma garanayo laakiin xag maan igu tusi sleek makeup contour so contour-ki waa kan kalarka contour-kan isticmaalay waa kaas ayaan mariyay xagan waan yar tusi hadana hagaas ayaan mariyay dhinaca kale saasan u mariyay marka waxaan doonayaa inaan isticmaalo bronzer-kana aad baan uga helaa aad baan uga helaa marka waa favorite bronzer-kayga contour-ka ayaan dul marinayaa wuxuu siinayaa qurux uu ka dhigaa marka I feel like marka contour sameysid bronzer-na waa u baahan tahay 100% marka bronzer-kana waa kaas maanta waxaan sameeyay contour caadi ahayn wallahi my whole face is lifted wajigooda maanta waa lifted laakiin masha Allah I think saasaa loo baahan yahay contour qof markuu sameynayo oh yeah waxaan iga iloobay sankana waan contour gareeyay waxaan isticmaalan waa sleek makeup ayaan isticmaalay marka waa ka wajigiina uu bronzer baan isticmaalay. Favorite part-kayga maanta waxaan isticmaalanaa waxa weeyaan eyeshadow waxaan doonayaa maanta inaan isticmaalo eyeshadow inaan isticmaalo very bright marka waxaan doonayaa maanta inaan makeup-kayga makeup maaha eyeska inaan ka dhigo kalaro aan awal marsan marka runta haddaan ii sheego pink uma doona inaan marsado okay pinkigan rose-ka amba kan ayaan doonay inaan isticmaalo bal farahaygaan ku yara eegi swatch baan sameyn doonaa bal kaan ka helo waa kaas bal labada pinkiga kaan isticmaalayo ma garanayo mise pinki waan iska daynaa oo waxaan isticmaalnaa purple okay purple baan isticmaalayaa purple waxa weeye af Soomaali ma garanayo waxa lagu dhahaa purple runta haddaan ii sheego kaas ayaan isticmaalayaa persuasion baa la dhahaa and then waxaan dul marinayaa makeup and then temptation saddexdaa actually
kaladaas oo dhan isticmaalaya marka ila daawada insha Allah intan ma hadi doono saan u sameeyo insha Allah iska daawada powder ma doono ishii kalena waan dhameeyay I really love it aad baan uga helay intaasaan maanta u sameeyay 3 kalar baan isticmaalay intaa hoostiisana waan mariyay marka makeupka masha Allah absolutely love it xag intaha waan ka helay imika waxaan isticmaali doonaa insha Allah NARS concealer NARS ayaan isticmaalayaa weli powderkii maan marin marka waxaan doonayaa intaa hoostiis inaan sidaa u marino iyo xaggan inaan sidaa u marino labadaa dhinac ama marinayna marka waxa weeyaan NARS concealer in the shade waxaan yahay waxaan jeclay inuu bright noqdo intaa hoostiisa marka caramel baa la dhahaa kan colorkayga saxda maaha laakiin it makes it really nice waa kaas ma doonay inaan hoos geeyo we just wanna lift waxaan doonaa indhaha inaan lift gareyno on bright ka dhigno hoosta indhaha marka waxay noqonayaa qurux eyeshadowguna wuu soo bixi doonaa marka lighter color xagga marisid marka waxaan islenaynaa waan blend gareynaynaa insha Allah saas manu blend gareynaynaa okay concealerkii waa kaas indhaha hoostiisa ayaan marinay siduu indhuhu bright noo noqdo waxaan doonayaa next inaan isticmaalo powderkan aan isticmaalno waxa weeyaan Laura Mercier powder Laura Mercier translucent powder ayaan isticmaalaa indhaha hoostiisa well to be honest maalin kastaba powder like waxay ku xiran tahay makeupka aan doonay inaan sameeyo maalinta marka maanta waxaan doonayaa makeupka inuu aad u qurux badnaado marka powderkan waxa weeye number 1 anu horta aad baan uga helaa so many years baan isticmaalayay haddaa karisin insha Allah iibsada waa powder aad u qurux badan makeupkaagana aad buu qurux uga dhigayaa makeupkaaga marka makeupkaagana wuxuu ka dhigayaa si qurux badan baan ku yidhi very very beautiful I love it I love productkan in badan waan isticmaalayay marka inaan iyo dry gareeyahayd laakiin waa iska caadi saas ayaan u tataabsiinaynaa ilaa kor ayaan u qaadaynaa waa kaas and then dhinacana waan sameynaynaa waa kaas in badan ma loo baahnaa xaggana waan doonay inaan mariyo contourka hoostiisa ayaan sidaa u marinayaa waxaan isticmaalayaa Charlotte Tilbury powder ayaan doonayaa inaan afka areada xagga chinka iyo xaggaas areadaas oo dhan xagga afka ayaan marinayaa insha Allah marinayaa muraayadiisaan isticmaalayaana usually indhaha hoostiisa ayaan mariyaa maanta waxaan isticmaalayaa
Hero Huda Beauty ayaan afka marinaynaa. Hadda in badan ma doonayo inaan isticmaalo. Halkan ayaan dul marinaynaa. Waa kaas. Okay. Masha Allah. Maybe 2 minutes baan ku yara daynaynaa, and then waxaan doonaya inaan iska wala masaxo powderka. Marka 2 minute baan siinaynaa, bal 2 minute. Okay, powderka oo dhan markaa iska masaxaya imika. Powderka oo dhan ayaan sidaa iskaga masaxaya. Next waxaan doonayaa inaan quickly mariyo colorkan ayaan doonayaa inaan mariyo as a blush. Colorkaas ayaan ka dhiganaynaa maanta blushkeena. Marka highlighterka ayaan quickly sameynaynaa. Ma isku badanayno. Simple highlight baan doonaya maanta inaan isticmaalo. Very affordable as well, qaalina maaha. Xagga hoosta anigu soo qori doonaa magaciisa. Waan dhameeyay imika highlighterkii wixii oo dhan. Quickly waxaan doonayaa inaan isticmaalo sprayga. Wejiga ayaan wala spray garanayaa. Morphe spray baan isticmaalayaa. Continuing setting spray. Waan ugu soo noqday. Waxaan iloobay inaan xirabahayga sameeyo. Waan sameeyay imika. Xirabahii baan dhameeyay. Marka imika ayaan sprayga isticmaalaynaa. Aan wejiga oo dhan spray garanaynaa insha Allah. Okay, marka waxaan doonayaa inaan fururahayga sameeyo. Marka waxaan isticmaalayaa waa lip liner. Morphe baan kasoo gatay. Magacana waa Chanceter. Xagga hoosta ayaan nigu soo qori doonaa insha Allah magacyada oo dhan, wax kasta aan maanta isticmaalay. Xagga hoosta linkyada xagga ka iibsan kartiin, wax kasta hoosta nigu soo qori doonaa insha Allah. Okay, lip linerkii waan wala marsanay. Imika waxaan doonayaa inaan NYX. Waxa weeye NYX Butter Gloss. Waxaa la dhahaa Marilyn. NYX Butter Gloss in Marilyn ayaa la dhahaa. Kaas ayaan doonayaa inaan fururahoodan mariyo. Waa gloss. Marka waxa weeye gloss oo waarki doontiin insha Allah markaan marsado. Waa kaa aad baan igu suungareeyay, bal dib baan yara celin doonaa. I feel like, you know, especially marka lagu daawado TV-yada iyo wajigayga markaan dib isku daawado, I'm like acuudu billah, aad baan isku soo dhaweeyay kamarada. Laakiin anigu waan ka helaa markaan daawanay dadka kale aad baan uga helaa marka qofku kamarada si fiican wajigiisa u tuso dadka makeup-ka. Marka that's why baan u zoom garayaa. Laakiin sometimes waa too zoomed. Marka waan try garayaa inaan dib niyar celiyo ilaa ay make zoomed baan yahay. Laakiin it's okay. Waa kaa ma doono inaan isku badiyo. I feel like maanta lip linerkaygu aad buu u madow yahay, aad buu brown u yahay. Waxa weeye more of a ombre look. Laakiin I like it. Waan ka helaa masha Allah. I love it actually. And usually waxaan sameeyaa in badan fururahoodan baan mariyaa glosska. Laakiin this is a nice look. Absolutely love it. insha Allah khalaas waan wala dhameeyay. I hope inaan ka heshaan some makeup look waan maanta u sameeyay. And I feel like wax inuu iga maqan yahay, laakiin waxna ma iga maqno. Waxna wax kasta waan marsaday. And I love it. Masha Allah aad baan uga helaa makeup lookan. Very, you know, maanta waxaan marsanahay color indhaha ku marsanahay. Fururaha waa inaan in yar, you know. Why? Because kan pink ma ka dhigi karo, kana pink ma ka dhigi karo. It doesn't work. And waana xagga hoosta amba fururaha bunni kala dhigtid saa indhaha loo arko amba indhaha popping. Labaduba indhaha iyo fururaha popping ma noqon karo. Marka mid unba popping laga dhigaa. Marka for this instance waxa weyn indhaha ayaan maanta popping ka dhignaa. Eyeshadowgeena masha Allah. I absolutely love it. Isoo sheega xagga comment-ka haddaa ka heshan inuu kuna amba colorka doonaysiin inaan isticmaalo next. Ana horta taan video kale nii sameeyo insha Allah. Waxaan doonayaa inaan akhtaradan inaan isticmaalo.
and even like blues kalaro inaan i tuso. awal markaan yaraa waan isticmaali jiray kalarada badan, laakiin markaan yar weynaaday waxaan jeclaaday buniyaasha inaan kuna noqdo buniyaasha different kind of buni inaan isticmaalo, laakiin imika waxaan doonaya inaan isticmaalo kalarada kale. marka insha allah isoo sheega inaad ka hesheen makeup lookan iyo inaad makeup look kala doonaysiin, xaga comment igu soo qoraa, i like gareeya videogan, i comment gareeya insha allah. asxaabta waxaan yeeranayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.